baan ku sheegay marka oo horeyso waan magacayga waxaa weeye Maxamuud Xasan Cilmi waxaan ka mid ahay labadii shakhsi oo u matalaysay Jubbaland madasha wada tashiga qaran 2016ka wala socotaan meeshaas waxaa madaxweynaha iyo wafdiga ballaarnaa oo hogaaminayay ayaa tagay waxaa lagu soo heshiiyey process socon doono ilaa doorashada ay ka dhacdo 16ka processkaas oo dowladda Soomaaliya la rabo inay maaragtay doorashadii sidii loo fulin lahaa looga tashado hadda waxaan sidoo halkaan ku nimid in aan samayno madashii koowaad ee wada tashi ee lala yeeshay bulshaweynta Soomaaliyeed waa laba maalin shir dhici doono oo ka dhici doono guud ahaanba dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadaha gobollada inkastoo annaga reer Jubbaland ay nooga dhici doonto 3 meelood oo kala gedisan oo noqon doonta haddii la yiraahdo magaalada caasimadda ku meel gaarka Kismaayo magaalada Doolow iyo magaalada Doorley saddexda meelood ay noqon doonaan shirkaasna waa shir bulshada Soomaaliyeed ugu weydiin doono deegaanka reer Jubbaland aragtidooda ku saabsan 2016 sida loogu gudbi karo maxaa la yiraahdaa caqabadaadka jiray looguna gudbi karo doorasho cod iyo cod ah la weydiin waa bulshada insha Allah taala taladooda ayaa waxa lagu goosto marka arrinkaas ayaa ahayd arrinka aan ku maqnayn haddana waa inuu nimid waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo wasiirkeena Cabdinuur oo runtii ahaa shaqsigii ilaa maaragtay ula maanaa shaqada ahaana hogaaminayay hawshaas aan ku maqnayn